maalintaasi ma aanay jirin arday iskuulka u diiwaan gashan haba yaraatee walow hal arday ma aanu diiwaan gashan maalintii aan uga jirinay guddidan oo haddaan si arkoy ka mid yihiin Saad iyo Maxamuud iyo Aweys iyo Cabdullah iyo Dr. Walhad iyo Nagay ay joogeen xubno kale oo iminka ka maqan ay maalinta nagala qayb galeen ma aanay joogin muxuu ahaa hal arday dugsiga ma aanu diiwaan gashanay maalintaa waxay ahayd fikir 2 sano ka hor bay ahayd maalinta iyaga dhiirigelinta siiyay inaan iskuulka bilowno kadib markaan barnaamijkii akhrinay iyo qaabka loo wadayno iyaga iyo ardayda waa u baahan yahay dugsi noocaas oo kale oo quality leh oo muxuu ahaa waxqabadka noocaas bixin kara waanu raadinayna waana keenaynaa inta ugu badan ardayda maalintaasi waxay ka yimaadeen waalidiintii shirka galay ardaydoodii ayay ahaayeen qaar badan waxa ay muxuu ahaa soo geliyeen markaa form 1 halka ay ka xubno kala ama ardayda qaar ka mid ah ay maalinta ahaayeen kuwa form 1 dhameystay oo soo geliya form 2 dhammaantood wax la isku wada keenay halkan iyadoo oo annaga iyo iyaguba aanu maalinta isku daynay ama aanu bilaabanay inaanu xaqiijino hadafkii habal inaanu tayada waxbarashada ee gobolka ama muxuu ahaa waddanka Soomaaliya aanu waxoogaa kor u qaadnay haddii ilaahay yidhaahdo intaan awoodno maanta waxaa ka soo wareegtay alxamdulilah 2 sannadood sanadkii labaad baa dhammaaday xafladii hore waalidiin badan maanan martiqaadin waayo waxaas lahayn in yar sanadka dambe ha gaadho muddo ha ka soo wareegto isbeddelka la dareemi karo ardaygii maalinta foomka hadda wuxuu gelaya form 3 kii maalinta form 2 soo gelin hadda wuxuu gelaya insha Allah form 4 ku gelaya in yar haddaan xagga dhinaca hore u sii socono waxa weeyaan waalidiinta oo taageero badan nala garab jooga iyadoo ay sababo badan jiraan oo ay ugu horeysay inay yihiin bahda waxbarashada intooda badan ama 90% hadday tahay waalidiinta kuwa gobolka iyo ardayda ama waalidiintu ay ka yimaadeen qurbaha taasi waxaan siisaa taageero fara badan taageeradu waxay isku jirtaa laba nooc weeyaan meelahaan ku wanaagsanahayna dhiirigelin baanu ka helnaa meelahaan la leexleexanina waxaanu ka helnaa taageero iyo talooyin toosin badan bay noo soo jeediyaan taa waxaan leenahay waxa weeyaan aad iyo aad mahadnaqaynaa dhammaantoodba waxaan leenahay waxa weeyaan intii aanu muxuu ahaa idinka filanay weeyey hawshiina inteedii ugu badnayd waad qabateen dhinaca kale markaynu waxoogaa yara eegno systemka iskuulkeena muxuu ahaa ayatiin waxa uu dhowr qodob baa uu kaga duwan yahay haddaynu soo kobno muxuu ahaa systemkeenii hore oo ay ka mid tahay waxyaalahan soo kordhinay waxaa ugu horeeya waqtiga aynu dhiganayna iskuulka waxoogaa waanu dheerayna xiisadaha annagoo isle gaabis baa jira xagga waqtiga cidhiidhi ku ah iskuulla badan oo waddanka ka jira waxa la qaban lahaa waqtigu yar yahay waxaa kaloo caqabadaha aanu markaa isla eegnay ka mid ahaa aynu wax ka qaban islahayn nambarka ardayda ay classeska ku dhigtay Somaliland iyo muxuu ahaa gobolkeennaba inay ardaydooda aanay limit lahayn ay jiraan muxuu ahaa kalaasyo 50 ay jiraan kalaasyo 70 ay jiraan kalaasyo muxuu ahaa 100 kalaasyo 100 ka badan la sheegay muxuu ahaa inay xataa jiri karaan taasi waxaanu isku garanay annaga iyo muxuu ahaa intii markaa hawsha ku jirtay inay caqabad ku tahay waxbarashada iyo muxuu ahaa tayada ardayga iyo macalinka laftiisa wuxuu gudbinaya cigili ku tahay tii waxaanu ku soo qabnay ilaa 5 iyo 30 arday inaanu muxuu ahaa on average ku soo fadhiisno oo aanan inta badan ka badinin dhinaca kale waqtigan hadda aynu ku jirno oo waqti aad u casri ah oo ay taariikhda hadda marayso 2012 ay socoto IT-ga ama technology-gu nolosha wuxuu ka noqday qayb ka mid ah weey taasi darteed si aanu tawla jaan qaadno iskuulka waxaanu ku soo kordhinay hal muxuu ahaa subject oo ka mid ah xiisadaha iskuulka si caadi oo regular u baxaysa oo aynu u bixinay computer basic skills ka aynu u bixinay IT-ga marka ardaydu ay ku dhigan doonaan 4 sano si ay u qaataan xiisadaha kale ee biology-ga iyo physics-ka iyo geography-ga ay u qaataan ayuu qaataa computer-ka 4 sano sidaasi ayuu la soconayaa taasi waxay ka caawinaysaa ardayga inuu la jaan qaado waxbarashada casriga ah oo hadda ku xidhantay intii badneedba xagga aynu aftuuray haddii aynan kolba waxa cusub la soconina waxay noqon doonaa inaynu ka dhacno muxuu qaabka ay waxbarashadu socoto sidaa daraadeed waxaan ahayn baan filayaa muxuu ahaa iskuulladan caadiga Soomaaliya iskuulkii ugu horeeyay ee ku bilaabay xiisadaasi hadda alxamdulilah iskuulla kale way jiraan oo waxa ka mid yahay waabari oo ka mid yahay iyagoo computer ka bilaabay iskuullada kalena waxaan ku boorinaynaa inay laga maarmaan mar hadday noqotay aynu ardayda ku caawino wax kasta oo noloshooda u baahan yihiin ama ha noqoto computer ama ha noqoto xiisadihii kale ama ha noqoto qaababka kale intaa waxaa noo dheer systemka ardayga evaluationkiisa aan u samayno oo ka duwan muxuu ahaa systemyada ay inta badan iskuulladiina ku naqaano waxa caadi noo ahayd oo aanu annaga lafteeduba ku soo dhigan jirnay dhaliilo ma sheegayna laakiin duruufo ay keeneen in hal mar uun sanadku markuu dhammaado imtixaan la qaado oo bilowga markuu midterm gayayna hal mar la qaado 2 jeer oo keliya ardaygii maalinta duruufaha si uun ay wax u reebaan oo imtixaanka qiimo hoose keeno ama ha noqdo arday xanuunsanaya ama ha noqdo arday muxuu ahaa kan hay imtixaankiisii hal mar wixii laga wada baahan hal mar wada keeni kari waaye duruufo badan baa markuu maalin isku soo ururo ama markuu hal waqti
iskugu soo ururo duruufo badan baa jira marka waxaanu sameynay imtixaanka iyo qiimeynta iyo ardayga wixii oo dhan waanu jajibinay waanu yareynay waxaanu ka bilaabnay iskuulka marka la soo galo bil walba waxa laga qaadaa ardayga muxuu ahaa 5 darajo oo layliya ama muxuu ahaa exercises iyo assignments waxa kaloo laga qaadaa 10 darajo oo bil walba marka dhamaato imtixaan laga qaado bil walba sidaas oo socota taasi wuxuu ku dhameystaa ardaygu boqolkiiba 50 imtixaanka intii laga rabo final examka waxa uu qaatay inta bilaha ku jiro si aanay maalinta u dambaysa aanay wixii ugu wada dul dhicin ardayga aanay culays ugu noqonin oo aanu maalinta ardaygu soo dhaqaaqin waxay keenaysaa in ardaygu bil walba uu ahaado diyaar oo bil walba muxuu ahaa saynigiisa diyaariyo isagoo urursanaya darajadiisa oo imtixaanka finalka ku darsan lahaa sidaas darteed 5 darajo 10 muxuu ahaa boqolka 10 darajo oo kamid ah waxaanu ku bixinaa attendance ardayga 20 darajo iyo 10 darajo kalena waxaanu ku bixinaa assignments iyo exercises ay ardaydu classes kaga shaqeeyaan 20% kalena 30% kalena waxaanu ku bixinaa muxuu ahaa imtixaanada laga qaado bishii boqolkiiba 50 ba halkaas ugu tagay boqolkiiba 50 kalena waxaanu ku qaadnaa imtixaanka u dambeeya oo finalka ah ayaanu ku qaadnaa hal example baan hadda tusaale ahaan soo qaadanaynaa ardayda imika form 3 ga galaysa ee form 2 ga ah markii hore waxa la qaadi jiray imtixaan centralized oo Soomaaliland ay qaado oo maalinta u dambaysa ardayda la yiraahdo waxa la idinka qaadaya HGC oo ay ardaydu inta hore diyaar garow ku jiraan sanadkan markuu gabagabo waqtiga marayo ay wasaaradii iyo imtixaankii oo laga xogaa laga cawday oo si uu suurtagali waayo la joojiyay waxaanu sameynay imtixaankii wasaaradda ay qaadayso kala u dhigma ama xogaa waliba muxuu ahaa laga yaabo in xagga difficulty oo xogaa uu ka leeyahay oo hal mar laga wada qaadayo ardayda form 1 iyo form 2 isku jiraan markaanu maalintii dhawada imtixaanka dhigay isbarbar dhignay ardaydii bil walba imtixaanka laga soo qaadi jiray iyo ardayda maalin kale imtixaanka laga qaaday waxa soo baxay difference weyn soo baxay ardaydu imtixaankoodii hore mid taranki baanu qiimeynay kii finalkan hal mar wada qaaday waxa soo baxay ardaydu aad imtixaankooda u hooseeyo oo marka la isku wada geeyay in maalin kale la qiimeeyo 2 sanadood wixii la dhiganayay waxay noqotay ardayda muxuu ahaa performance hoos loo dhigtay xagga waxbarasho caalamka laakiin gariirka ay keenay hoos loo dhigaysa taa waxaan leenahay marka in imtixaanka aan qaybino waana hab casri ah waana hab muxuu ahaa standard ah oo leenahay waa loo baahan yahay wax badan oo qabtay waxaan markale aad u salaamayaa guddiga iskuulka oo xubno badan oo maanta kamid ay nala joogaan oo dhammaantood mulahay wajiyadooda iyo magacaantooda ay macruuf inagu yihiin si dhiirigelin aan ugu samayno ardayda kala hore ardaygii iskuulka ugu darajada sareeyay waxaanu siinay inaanu hal semester ka dhaafno muxuu ahaa imtixaanka lacagta bisha u bixinayo sanadkan insha Allah waxaan ku dhaafi doonaa laba arday labada arday waxaan noqonayaa ardaydii form 2 ga ahayd ee laga qaaday imtixaanka form 1 ka iyo form 2 ga isku jira ardaygii ugu darajada sareeyay inaanu muxuu ahaa ka dayno fiida oo bixinayo semesterka soo socda marka uu form 3 gaaro ardayda kale ee form 1 ka iyo form 3 ga ee darajada imtixaanka sida isku mid ka u galay bilihii hore ilaa iyo maalintii ugu dambeysay isku xisaabinayay iyagana ardayga ugu sareeya waxaan ka dhaafi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo anagoo dhiirigelin uga dhigana isaga iyo kuwa kale inay ku daydaan inuu isagoo semesterka iska daayo marka insha Allah ta'ala aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa talooyinkiina iyo tusaalayaashiina inay yihiin waxa iskuulka ugu socdo muxuu ahaa annagana qalqallo waxaan naga biinaya ardaydeena iyo dhammaanteen hadafkeena xaqiijinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.